dhammaantiin waa mahadsantihiin ayadoo waqti adag lagu jiro sida aad noo soo dhaweyseen walow annagu aan runtii aad uga cudur daarannay sida guddoomiyuhu sheegay duruufta caafimaad ee guud ahaan ka jirta Soomaaliya gaar ahaan Galmudug gaar ahaan magaalada Cadaado oo hadda xaalad adag ay ka jirto si kasta ha ahaatee soo dhaweynta diiran iyo waqtiga aad dheerna sugayseen waa idinkaga mahad celinaynaa aad iyo aad u mahadsantihiin intaas kadib waa idiin nimid socodkaygu dhowr arrimood isugu jira waxaa ugu muhiimsan xaaladihii caafimaad darro ee baryahan ka dhacay magaalada Cadaado oo dad badan ay u geeriyoodeen dad badanna ay u jiifaan cudurka COVID-19 ilaahay waxaan ugu rajaynaynaa jannadiisii intii dhimatay inuu siiyo ilaahay ha u naxariisto waxaan kaga soo hormarnay oon hadda idiin wadnaa haddii ilaahay yidhaahdo laga soo wada shaqeeyey deeq dad Soomaaliyeed oo reer Galmudugna gacan ka geysteen oo ganacsataa dawladdu gacan ka geysatay federaalka Soomaaliya Galmudug waxa ay kari kartay ka geysatay waqti dhow waxaana soo gaari doonaa haddii ilaahay diyaarad wixii qalab ah oo baahi degdeg ahaa oo ku aadan xanuunkan ay saaran yihiin insha Allah waxaan tegaynaa goobaha caafimaadkana waa tegaynaa waxaan dardaarmaynaa in aad iyo aad loo taxadaro laga fogaado wax walba oo fududayn kara xanuunkan inuu sii fido laga fogaado runtii waxaan leenahay wacyigelinta iyo fariimaha caafimaadka aad looguma hoggaansamo aad looma tixgeliyo aad looma dhowro waxaan leenahay weliba magaalada Cadaado oo hadda duruuf gaar ah ka jirto aad iyo aad ciidamada amniga culummada diinka mas'uuliyiinta dhammaan qaybaha kala duwan waxaan faraynaa in la xadado isu imaadyada maqaayadaha meelaha la isugu yimaado dhammaan in la xadado dadku guryahooda muddo ku nagaadaan bal inta hadda sida magaalada xaaladeedu tahay si gooniya loo xaqiijiyo insha Allah taa waxaan rabnaa inay ka qaataan taliyaasha ciidamada waa siinay amarka inay waliba xadadaan wixii u hoggaansami waaya fariimaha iyo digniinaha iyo dadaalada caafimaadka la wado inay xadadaan hawl galaan arrintaana waa uga fadhinaa insha Allah socodkeenna inta xaaladda caafimaad in la qaybsanay kadib safar shaqaa ku jira waa idiin nimid qaybaha shaqada waa wadaagi doonaa meelo kale iyo oo muhiima iyo magaalooyin kalena waa u soconnaa haddii ilaahay yidhaahdo waa wada joognaa fadhiyaan isugu sheegaynaa howlaha insha Allah waxaan leenahay wax walba oo dadaala waxaan ka hormarinaynaa caafimaadka bulshada waxaan dardaarmaynaa ugu dambayn aad iyo aad iyo aad in loo dhowro loo dadaalo haddii ilaahay yidhaahdo dadka wixii hadda dhibaato saa'ida qabanaa in la qaado intii kalena baaris iyo lagu sameeyo qalabkii degdega ahaa oksijiinka iyo wixii la midana waa la wadaa haddii ilaahay yidhaahdo hal la dadaalo insha Allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu